nasiib wanaag ragga meesha fadhiyo dhan wareer waqooyi oo maanta nin odhanaya koonfur baa lala doodaya ma jiro waxay caddaynaysaa taasi wax waqooyigii lagu heshiiyey inayna jirin oo la yidhaahdo wax somalilan ta labaad mar walba waxaan maqlaa british somaliland waxaan su-aashaan anigu mar walba isweydiiyaa waxay tahay gumaysigii hortii maxaynu ahay su-aashaasi waxaan weydiinayaa nimankan soomaali kala goynaya ta labaad 91kii markii dhulka la soo galay dad xoog lagu qabsaday baa jira su-aalna lama weydiin ilaa haddana xoog lagu haysto meesha lagu heshiiyey layidhi wax somaliland la yidhahdaanu samaysanaynaa bal nimankan goynayaa ka jawaabaan iyadana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا واحد يا سيد علي جلدون. مركا أنا قينا واحد فائدة دونية سؤال شاسي أفرت هذا بوا وطلع. 26 جون أنا كل اللي بهرت متشرين. صومات كنا ومان نلن. هل ميدون بار ربعنا هلو مركا. وحن مقرأ لبده ولدود با إسكودر صدي. والله إسكودر. oo koonfur iyo waqooyi ahayd Somaliland ama waqooyi dhulkan aniga laftiidu ka soo jeedo waxa la yiraahdo waxaynu xorownay 26 June marka waxaan rabaa in la ii sheego 26 June habeenkii ay ahayd dabcan hargeysa magaalada madaxdii gobolada waqooyi bay ahayd calankii laga taagay nooca uu ahaa waxa iga shaafiye ma garanaya hadduu kii Soomaaliya ahaa de wax midoobay ma jirin de calankii buluug ahaa calan baanu qaaday aniga la igu sheekiyay aniga laftayda ku doodi jiray calan baanu sii qaaday laakiin hadduu kii buluug ah noqdo de wax isku biiray ma jiraan hal wadan u baahay baanu galay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحلا يلا محمد بلحن نير الوقوي أنا واحد لما سؤالات بنا ويدينا يا سبيشال جروب كان سومالي لنا قد أول لاينا يا سؤال شهرة بيرسل له حودينا يا بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر وحنوقنا أحمد إسماعيل سمتر مدفر بدل وحول ولا ينشري سومالي لنا إنه جوي كرين هذا وحول ولا لاينا يا إن سومالي لنا جوي كرتو أحمدو محاك بدلي مثلا لقى يا أبا مال ما كم دو دمينا إنه مقالاتيكو سومالي وين ولا لاينا تاسوا سؤال اللي بعد وقوي سين أوجنا هاي تدفر وقوي سين أوجنا تدفر بدن بعد الجن إسكو ولا راح سنة قونيك هدي إنه يجنو سناق هدي إنه يجنو صول هدي إنه يجنو أوضل مرة سنة دادير أوتر سنة فرقتير سمويانه قونيك مرة سنة مركا مرير قرا عيا قو عيا ودولد دولي إنه نقدان سومالي لنا سؤال الله نوع تواكب حياة أنا مدبان دوني يعني نراه إذنكم مهتسن أنا ضد بان سوقرتي ضد أسو أم بيجي هايب سنت أم بيجي أنا يب سمينا وان سوقرتي ويسور تجلي كري ويدي ضد يدي أو بوحدين هالكن صار ديجو سؤالها قار كود بيكجواب لهيد marka waxaan goostay in aan dood halka aan ka qayb galin waayo waxaan soo dhigtay iyo sidaan doonayay inuu soo dhigo way suurta gali kari weeday su'aalaha qaar bay ka jawaabi lahayd marka raali halayga ahaad aniga hadalka intaas ku dhigay أنا مدبان دوني يعني نراه إذنكم مهتسن أنا ضد بان سوقرتي ضد أسو أم بيجي هايب سنت أم بيجي أنا يب سمينا وان سوقرتي ويسور تجلي كري ويدي ضد يدي أو بوحدين هالكن صار ديجو سؤالها قار كود بيكجواب لهيد marka waxaan goostay in aan dood halka aan ka qayb galin waayo waxaan soo dhigtay iyo sidaan doonayay inuu soo dhigo way suurta gali kari weeday su'aalaha qaar bay ka jawaabi lahayd marka raali halayga ahaad aniga hadalka intaas ku dhigay
marka anigu su'aal ma qabe talaan wataa ninka ka ra'yi duwan dadkaasaan ahay anu ninka ugu daayar baan ahay intaa halkaa fadhida waa wada qabiil nin walba qabiilkiisa in laga haduu jecel yahay laakiin iyaa ka hadlay dhalinyartii sideedoo kale ahay soo tahriibta badaha ku soo guftay nin ka hadlay miyuu jira nin walba hadduu ilaahiisa xusayo cibaadaysanayo anu waxaan odhan lahaa war qabiilkan iska daaya anu gobolka awdal baan ka soo jeeda haddad nasabkayga bartaan axmed ismaaciil samatar waa adeerkay haddana marka laga gar helo u cararaa run baan nii sheegaya anu midbaan doonayaa inaan idin idhaaho idinkoo mahadsan anigu dood baan soo qortay dooddaasoo anba yay ha iibsanta anba yaana iibsamina waan soo qortay way ii suurto geli kari weyday doodaydii oo buuxda inaan halkan soo dhigo su-aalaha qaarkood bay ka jawaabi lahayd marka waxaan goostay inaanan doodda halkaa aanan ka qayb gelin de waayo waxaan soo dhigtay iyo sidaan doonayay inuu soo dhigo way suurto geli kari weyday su-aalaha qaar bay ka jawaabi lahayd markaa raalli ha layga ahaada aniga hadalka intaasu ku dhig marka anigu su'aal ma qabe talaan wataa ninka ka ra'yi duwan dadkaasaan ahay anu ninka ugu daayar baan ahay intaa halkaa fadhida waa wada qabiil nin walba qabiilkiisa in laga haduu jecel yahay laakiin iyaa ka hadlay dhalinyartii sideedoo kale ahay soo tahriibta badaha ku soo guftay nin ka hadlay miyuu jira nin walba hadduu ilaahiisa xusayo cibaadaysanayo anu waxaan odhan lahaa war qabiilkan iska daaya anu gobolka awdal baan ka soo jeeda haddad nasabkayga bartaan axmed ismaaciil samatar waa adeerkay haddana marka laga gar helo u cararaa run baan nii sheegaya iyo dee saaxiibkii axmed samatar oo aan saaxiib ahayn oo muddo badan soo wada ahayn oo aan wada ahayn federaliis wada ahayn aanu magaranaysa meelo badan wax ka soo wada qabanay aanu london wada tegno xisbi ku samaynay aanu Seattle iyo Calgary-dayda iyo Edmonton iyo magaranaysa Finland iyo Djibouti iyo Muqdisho oo ugu dambeystii intaan tagnay aan u tartanay madaxnimada lana soo garaacay oo anaga markaan la soo garaacay aan soo noqonay economist Axmed economist kan wadaagnaana isla markaa isaguna political economics ka yimaada anna financial economics ka ayaan ka yimaadayo cashuuraadka iyo economics ka caynkaas ayaan magaranaysa ku takhaso waxna ka qoraa marka nin labadeeduba aan aad u jecelnahay Keynes la yiraahdo baa jira markaan Axmed la kabtaban ku war Axmed oo maxaad iga carartay jawaabtiisu waxa ahayd saaxiib sadigii ogaa Keynes wuxuu yiri when the facts change I change my mind do you ayaa su'aashi marka facts kiba isbedelay information ba isbedelay dabadeetana ma garanaysa sidaasana adigu buu yiri halkii ba taagan tahay waa run halkii baan taagan horta waa taas saaxiibkay sida uu ogaada kullayba inaan welina saaxiib nahay aan kaftanana laakiin mid baan aad uga socdo daaranaya halkan markaan ka hadlayo fikradahaygu kama turjumaan reer fikradihii kama turjumaan qofkii ma garanaysa halkan isooran doono waa reerkayagii ninkaasi fiican uguma hadal reer uma hadlayo umana hadli karo fikradahaanba waayo waxaan xataa aanan u hadli karin iska dhaaf reerkayga guud jilib aanan u hadli karin iska jaalfiga guude xuseen warsame nageeya la dhahdaa oo nageeyi ayaanan u hadli karin waxa waliba si cadeen inuu hadli karina su'aalaha waxa ku jiray iyay masishaa ma garanaysa Soomaaliland ay ba ku jiray saddex kooxood ayaan qabaa ayay Soomaaliland ka koobanahay saddex kooxood oo fikrad ah aan qabiil ahayn saddexda kooxood waxa weeyaan koox leh waxa inoogu badisaa inaan go'no oo aan wadan gooni noqono ayay inoogu badisaa hadaan nahay dadka Soomaaliland oo isku duuban oo intooda badan aqlabiyadoodu ay daacad ka tahay وحاجة هوس أو قبيلة كتهوى جرا ولا جواي ماي ملنبا لكن أنتوا دم يضاعت كتوصل عصا وما ضحدوا بدن قلوين له لبكوا حوض كلا ولا بدو بقى وداعان إن الله نهاي يونيس ما وضن نهاي أو وحندوينا إنه ولي أرمد نمدي كود يشرو كوح داسنا لبكوا حوض بقول قيب سمان كوح أورنا إنه قربة أو سومال الله صد قيبة أو استيتس ولي بستيتس كاسو رنتو كردستان قبيلوين كردستان أما أول سيد هلا يلاحظوا أما ماخر سيد هلا يلاحظوا أما خاتوم سيد هلا يلاحظوا أما قبل رد سيد هلا يلاحظوا وحول الله هاللوج شيء قبيلوين كردستان
in la tago oo states lagu tago iyo qolooyin saddexaad oo leh anigu aan ka mid ahay oo leh war may inagoo isku duuban oo wixii la oran jiray British Somaliland oo hal ah oo isa soo ballansantay oo wax soo qaybsamay oo maamulkooda hoose markii hore ku soo heshiiyey oo justice isku soo xukumay dabeetana hala wadaagaan Soomaaliya ha hor fadhiistaan oo hay yiraahdaan war berigii 60 waa la dhacay sidana loo dhacay sidana ka roonista hala noo yeelo oo waliba xabursadaan Soomaaliduna way ka yeel saddexda qaybood baan nahay anigu waa kaas waxaan leeyahay halkaan tagnay inagoo isku duuban gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee lagu doorto doorasho xor ah waa ikraan xaajidada warsamo waa in adeertay walaashidna waan qabaa waxaan nahay ma garanaysaayn saas waa qoyskii dhabka ah oo kulmiye waliba ka soo baxdo qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee la doorto gobolka Awdal laga soo tayadahay oo welina imika hadda ka fadhiisatay oo ciyaalkii koriso odageeda dhintay ciyaalkii korisa haddana wali waa iyadu waa die hard waxay leedahay waa inaan go'aan wadan gaar ah sameysannaa ninka Awdal State presidentka ka ah waa Cabdi Ibraahim Nageeye waa Nageeye weey waana habar wadaag baan labadeeda hooyo walaal ah marka sidaas saddexdiiba aan ugu jiraa marka sideed qolo iska dhaafe ma masili karo ma garanaysa baasi hadaba fikradda aan u soo dhaco taanu aan rumaysanahay arinta Soomaaliland iyo ma garanaysa Soomaaliya oo su'aashii ahayd baan u soo dhacay ahayd war Soomaaliland xaq ma u leedahay inay go'do jawaabteeduna waxa weeyaan maya xaq uma laha Soomaaliland inay go'do sababta ay ugu lahayna waan sheegayaa runway oo ma garanaysaa 60kii xornimaan helay haddaan Soomaaliland reer Soomaaliland nahay waxaanan ku biiray dawladdii Italian Somaliland baan ku biiray oo waxaan wada sameynay soo wada marka loo eego sharciga international looga oranaya dawlad haddii ay ictiraaf raadinayso waa in markii hore ka samaysantay gumaysigii ka xorowgiisii oo ma garanaysa markii laga xoroogayay laga helayay ma garanaysa ay kataliska laba kooxood ma loo ogolaa 80nadii qarnigii 18aad iyo 19aad waxa la oran jiray waa reer Yurub kaliya qarnigii 20aadna wuxuu ahaa Afrika marka Afrika waxa la isku dhacay meeshii xuduud ahaydba in ma garanaysa dadkii helay ay noqon karaan marka oo way jirtaa arintaas oo sidaas waa la oran karaa laakiin shuruudda labaadna iyadana waa ka soo bixeen oo oranaysa waa in uu jiraa xuduud go'an iyo dad go'an oo aad xukumayso 3 milyan ee dheeraad ah 3 milyan bay xukuntaa waa run dhinacaasna waxa kale lagu xidhaa in uu dawladnimo ay sameeyeen hadda wayna sameeyeen oo dawladda hadda ka samaysan Soomaaliland waa dawladda lacagteedii leh ciidankeedii leh maxkamadeedii leh madaxweynayaasheedii leh la doorto madaxdeeda madax isku bedesho weeyaa waa run ta afraad ayaa ah inay gobonnimo jirto oo gobonnimo qaadatay taas way hadaba ta Soomaalida iyo ta labaad oo sheegi doono labadaas weeyaan ta magaraysa ana xaq u yeelanayno waxaan ugu yeelanaynaa waxa weeyaan mar haddii uu samaysmay wadan cusub oo markii hore wuxuu doonaa baa mar haddii wadan cusub samaysmay sharciyadaas oo dhan waxay isbedeleen 1964 markii ay samaysantay oo AU-da ay samaysantay ay wax badan isku bedelay oo Afrika ku heshiisay xeer la yiraahdo uti possidetis oo ah as you possess inta aad haysata ha kugu filaato meel xuduudda hadda jirta waqtiga la joogay kama boodi kartid taana waxa loo yeelay waxa weeyaan adduunka oo dhan baad isku raacsanoo in la yareeyo inay soo baxdo dadka go'ah qayb wadan oo ka go'da wadankii inay soo baxdo oo laba sharci oo jira oo adduunka ku caamaba la isku magaranaysa miisaama mid waxa weeyaan xaqa uu bilaadanku u leeyahay in uu go'i karo in uu cid wax ku darsan karo in uu xataa ku milmi karo oo assimilation waxa la yiraahdo uu leeyahay taas oo territorial rights la yiraahdo waxa taan lagu miisaamo oo trade-off looga sameeyaa sharci kale oo oranaya territorial integrity of the states oo ah inuu state jira uu xaq u leeyahay in xuduudiisii la ilaaliyo oo aan laga go'in sababta taasana runtii aad u xoog badan oo iminka adduunka inkastoo United Nationska iyo adduunku ka hadlo human rights individual rights laga hadlo
haddana adduunku kama koobna dowladaha adduunka ama ururada adduunku kama koobno qofof kama koobna waxay ka kooban yihiin oo unitkooga oo salkooga uu yahay unugoogu wuxuu yahay dowlado states ayaa unitka ah marka dowladaha xaqooga ayaa laga hadlaa inta badan sidaa darteed laguma dhici karo adduunka sharcigiisu uu ka gaabsadaa inuu dowlad yiraahdo waa lagu ikaraa xataa haddii dowlad jilicsan ay tahay lama odhanin dowladdu ma jilicsan tahay lama odhanin burburaysaa lama odhanin waxaasoo dhan waxaa la yidhi dowlad inay jirtay dowladdii soomaaliyeed ee 64 jirtana waxaa loo arkaa dowlad jirtay oo rasmi ah ayaa loo arkaa ta ugu dambaysa ee aad iyo aad u adkaanayso inay somalilan ku hesho wixii la odhan jiray magaraysa ixtiraafka ku hesho oo adduunku aanu ku dhici karaynin waa ta ah adduunka waxa la eegaa cidda la siinaya inta badan sida Suudaan Suudaan oo kale waxa la eegaa dadkaasi sida loogu cadaadinayo diintooda sida loogu cadaadinayo aragooga sida loogu cadaadinayo afkooga iyo cidda ay yihiin sida loogu cadaadinayo inagu waa run dad badan baa naga dhintay xasuuq badan baa ka dhacay laakiin bayskiisu ma ahayn diin ma ahayn af lagu kala duwan yahay ma ahayn dad lagu kala duwan yahay luqad lagu kala duwan ma ahayn waa dad Soomaaliyeed oo isku mid ah ayaa jira sidaa darteed adduunku kuma dhici karo oo morally ayay ku adag tahay inay kala gooyaan dad isku dad inay kala gooyaan aad buu adag tahay kuma dhici karo sidaa darteed wuxuu ku soo ururayaa warka kale wuxuu ku soo ururayaa dawlad kasta oo hadda go'aysa waa inay fasax ka heshaa dawladda laga go'ayo ama ha jilicsanaato ama ha jilicsanaanin adaba masaakilka dhacay waxa weeyaan Somaliland ilduuf bay samaysay 1900 iyo imisan haystaa xogaaba ay dhimanay good igu qayl hadii la yiraahdo iga yar jooji marka iga yara xogaa la yar hadal baalka khaladka ilduufka ay samaysay wuxuu ahaa very good ilduufka ay samaysay Somaliland wuxuu ahaa 1991 marka ay la soo noqotay tirwan la soo noqonay baashi waxay ahayd burco marka lagu shiray si fiican buu ahaa adeerkay baa ka qayb gal xajdo warsamo oo dadka qaban qaabinayay ilaa shirki boorama kii burco dadkaas oo dhan wada ahaa inta seegtay waxay ahaayna ka ilduufeen isagana ka wada hadalay waxay ahayd inay yiraahdaan bay ahayd Soomaaliya inta isku imanayso aan ka aamusno wax la yiraahdo goosasho markaasan ka hadlaynaa markii taa oran weyday ay yiraahdeen waan goosanay adduunku wargagaxaya oo waxay adduunku u dhan waanigi lahaa unitkiisu ama unugiisu waxa weeyaan state kaas iyagu la taliyaan United Nations Summit ama igaad ha haato AAU waa unit kaas ay ka hadlayaan marka unit kaas wixii unuga wixii khatar gelinaya ee unstable ka dhigaya ee peace kiisa yareynaya ee xataa jaarkiisa marka daba ay ku wadnayso waxa soo dhan dabcan marka hore argagax bay ka qaadayaan horta taas ugu horeysa waxay ahayd in talabaad halka ay khatarta ku sii heedo waxay ahayd de ciriiri bay isgeliyeen meel laga soo noqdaa ma jiro marka tirada waan go'ay meelad ka soo noqotaa wadama ma jirto wala miricsin laha waxa Ibrahim cigal markii Allahu naxariistay shirki boorame weynaan la qabtay wala miricsin waxa oran laha aynu shuruudo waaweyn ku xidhno lama oranina waxa la waan go'ay laga ma noqon karo hadaad ka noqotana wax khaayin baa tahay isna muxuu sameeyay distoor buu sameeyay 2001 uu magaranaysa dadka ka saxiixay 97 intii footaysay ay ku footaysay oo oranaya cidii ka noqotaa waa khaayin wadan de madaxweyne kasta meesha yimaada khaayin wadan inuu noqdo ka baqaya kuma dhici karaba inuu Soomaaliland isla markaa maxaa la yiri lama hadli karo dawladda Soomaaliland lama hadli karo waxaan ku mahadinayaa geesinimada uu muujiyay ninka la yiraahdo Silaayo oo 2012 yiri maya waa in la hadalaa Soomaaliya waayo waxay ogaadeen hadii la helayo ictiraaf hadii kalaba inay ku xiran tahay in dawladda aad ka go'ayso waxay yiraahdaan Axmed iyo kooxiisana way yaqaan metropolitan state baa cid laga go'ayo metropolitan state waa inaad ka heshaa ogolaasho ama ha jilicsanaato oo ha hogaamiye magaranaysa hogaamiye liito magaranaysa ama mid weyn ha hogaamiyo xaq bay u leedahay waa in magaranaysa la hadla marka uu gartay waxaan geesinimada Silaayo waxaan qirayaa inuu baarlamaanka geeyay Somaliland oo yiri saxiix inaan ka hadli karo in la hadli karo Soomaaliya sidaas 2012 bishii February 23 waa kii shirka u horeeyay London lagu yeeshay shirar kale oo dhan oo London lagu yeeshay Turkiga lagu yeeshay Djibouti lagu yeeshay UAE na waa ku dhacay
haddana wax ka soo baxay ma jiro kii u dambeeyna waa lagu kala yaacayba sababtuna wax kale maaha arrimo xidhayaa jira baxarkii markii horeba Soomaaliland isgelisay ahaa 2001 sharcigii ahaa lama go'i karo cidii tiraahda waa laga noqday kala go'i waa dambiile de goftigii la diraabay dambiilahaas ka baqayaayo kama hadli kara arrintaas maxaa sii dhaafsan arrintaas waxa sii dhaafsan kuwa Soomaaliya ka imanayay dastuurkii aniga laftayda kuwii ansixiyay aan kamid ahaa oo 2012 wuxuu oranayaa qodobkiisa koowaad faqradiisa saddexaad wuxuu oranaysaa lagama wada hadli karo kala go'a ummadda Soomaaliyeed lagama wada hadli karo marka meesha tagaan maxay la tagayaan labadii kooxoodba waa kaas waxay ku dhamaatay marka meel bahashiya maxaa hadaba xalku yahay halka loo socdaa maxaa la yeeli waa kana warfaana wuxuu la soo socdaa magaranaysa hawlihiisii walaalayaal waxa inagu dhacay waa identity crisis hadan Soomaaliyeed identity crisis baa inagu dhacay waxaan aan sameeynin wax ay sameeyeen dawladaha aflaxay sida Botswana oo kale ama Tanzania oo kale oo qabiilooyinkii wax ka xurubay wax ay sameeyeen waxay ku dadaaleen inay haybtooda saxaan oo Soomaali inay yihiin Tanzania inay yihiin Botswana inay yihiin inay maganas marka hore dadka ka dhaadhiciyaan oo olole ku qaadaan oo narrativeska lagu wada hadlayo oo noqdo midnimo ka hadlaya aan qabiilo ka hadlaynin aan gobol ka hadlaynin noqdo ayay ku dadaaleen ninka la khama looran jiray ee magaranaysa ka madax ahaan jiray Botswana wuxuu isku dayay mar alla markii uu ogaaday in wax khayraad yar la helayo inuu qabiilooyinka ku wareego jifiski mid walba ka saxo yiraahdo hadii aynu wax helo faqri baan nahay ma isku darsanaa dadka Maxamuud qaybsanaa dee faqri ba wada hayr haaba yiraahdeen waxba kama qabno meeshiisii baa laga helay khayraadkii ugu horeeyay dhamankii ugu horeeyay odayadiisii baa ku kacay jifiski soo yiri maya waa in anagu lahaana inteeda badan wuxuu yiri waa idinka saxay arrintaas وانا لو وضع يلانيا ودنكينا هذا ساس كبر واقوبي وودنك ودمada ugu barwaaqaysan Afrika ayuu kamid yahay maanta Tanzania Nyerere markuu madaxnimada qabtay sanad buu ka qaatay madaxnimada fasax oo ku wareegayay odayada soo uga dhaadhiciyo inay wada yihiin Tanzania aanay ahayn reer hebel iyo reer huddo iyo reer kale aanay ahayn inuu ka dhaadhiciyo dadka wayna ka dhaadhacday maantana laba tuulo oo ee jabcada qorma ka dhaxaysiyo qolooyin sameeyay cilmi baaris baa isku dayeenay laba yaro tuulo oo midna ku yaalo dhinaca Tanzania midna ku yaalo dhinaca Kenya bay ka qaadeen research waxba la dhaxdhigay waxa la ogaaday kuwii Kenyaankii inay ku heshii waayeen iskaraaceen kuwii dhinaca kalena Tanzaniana u aflaxay magana shuruuc sababtuna waxay ma yihiin kuwa Tanzania kan waxa isku arkeen Tanzanian kuwii Kenyaankii waxa isku arkeen qabiilooyin Maasai iyo Yahuudi isku wada leeynay kana loo badiyo kana baashaqaad marka inagu waxaan u baahanahay identity crisis baa inagu dhacay inaan sameeyno taas aynaan isku dayna hadaan reeqooyiga nahayna walaalkay Maxamed Axmed Siyaayna wax kula talanaya talaabada ku wada geesinimadan ku wado hanad laga ilaaliyo dadka in loo akhriyo bahalka ma garanaysa la yiraahdo narrativeska ah in dadku qabiil yihiin dadku han noqdaan dad Soomaaliland war ama hal go'o ama hal joogay dadku waa inay noqdaan dad Soomaaliland oo siman markaasan ama ummadana wax la qaybsan karaa ama aan ka goosan karaa inta ka horeysa ee identity-geenu yahay reer hebel Soomaalina wax noqon mayso Somalilandna waxba noqon mayso farta u taagan